wardegdeg daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hubkii ugu badnaa waxa ay ka soo furteen kooxda qawaarij ah ee al-shabaab nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hubkii ugu tirada badnaa maanta deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ku soo bandhigay hubkan aad aragteen waxaa soo bandhigay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana laga soo furtay kooxda qawaarij ah ee al-shabaab howlgalla xoogan oo ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanada Gandarshe Jilib Marka Buulanaagay ilaa Dhanaane ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay hubkan kaga soo furteen kooxda qawaarij ah ee al-shabaab mid kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inuu xaqiijiyay in hubkani ay maanta ka soo furteen nabadiidka al-shabaab xilli ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka sameynayeen tuulooyin deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose warka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hubkani iyo sanadan military ay ka keeneen deegaano iyo tuulooyin dhaca Gandarshe waxayna halkaas ciidanku ka soo furteen maleeshiyaad aad u tiro badan oo isku urursanayay kadib dagaal xoogan oo maanta deegaanadaasi ka dhacay warka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaadiid dagaal ka soo furteen kooxda nabadiidka ee al-shabaab gaadiidkaas oo nooca cabdibilaha ah oo laba qori dhashiika ah ay saarneeda kadib dagaal xoogan oo maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga Jilib Marka Gandarshe ilaa Dhanaane warka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta ay dhufaysadii ugu badnaa ay ugu daateen kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyadoona ciidanku ay ku guuleysteen guud ahaan in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan cadowga argagixisada ee al-shabaab mid kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in howlgalkii maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay deegaanadaasi ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah al-shabaab hubka aad aragteenna waa hub laga soo qabtay kooxda nabadiidka ah howlgalkan waxaa hogaaminayay taliyaha nabad sugidda gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay maanta qaarijiyeen 8 dagar qabo oo ka tirsan argagixisada al-shabaab guud ahaan gobolada dalka qaasatan Shabeellaha Hoose waxaa si dardar looga soconaya howlgallada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxay ku guuleysteen in ay dhowr jiha ay ka weeraraan tuulooyin hoostaga Buulanaagay wadadaas oo xiriirisa Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose howlgalkan oo ahaa howlgal aad u weyn oo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxay ciidanku ay ku soo bandhigeen daroono yaryar oo nooca wax duuba ah oo ay nabadiidku u isticmaali jireen ama ay ku duuban jireen goobaha ciidanku ay joogaan saraakiisha ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in hubkii ugu tirada badnaa maanta laga soo furtay kooxaha qawaarij ah al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay maanta ka sifeeyaan argagixisada al-shabaab saad arkaysaanba ama muuqaalada aad ku aragteenba qoryahan ama hubkan la soo furtay waxaa u badnaa qoryaha nooca loo yaqaano ama rasaasta nooca loo yaqaano BKM-ka iyo qoryaha sabanka loo yaqaano iyadoona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyo kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka ay ku guuleysteen in godadkii ay ku dugnaayeen hubkan inay ka soo saaraan wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka wadaan dhaqaaqadii ugu xooganaa ee deegaanadaasi looga sifeynayay kooxaha nabadiidka ee al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax war kama soo saarin howlgalladii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale Dhanaane ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waxay ka wadaan dhaqaaqadii ugu xooganaa iyadoona caawa ilaa galmadii maanta ciidanku ay tuulooyin roonda ay ku gaareen halkaas tuulooyin dhowr ay roonda ku gaareen halkaas ay ku dhuumalaysan jireen kooxda qawaarij ah al-shabaab Shabeellaha Hoose waxa ay kamid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada lagu baacsanayo nabadiidka al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab markana hadaynu aadna deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanka lagu magacaabo Jabadgodani oo maalmahanba ka socdeen howlgallada ugu ballaaran ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warku waxay sheegayaan in ciidanku halkaas ay ka wadaan dhaqaaqadii ugu xooganaa oo deegaanadaasi looga sifeynayay kooxaha qawaarij ah al-shabaab Jabadgodani maalmahanba ciidanku waxa ay ka wadeen howlgalladii ugu ballaarnaa oo nabadiidka looga sifeynayay deegaanadaasi waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladii maanta ay ka sifeeyeen ay ka sameeyeen degmooyinka hoostaga Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud ay ku guuleysteen in tuulooyin dhowr ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab
mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka inuu xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo sheegay in ciidanku howlgaladii ugu ballaarnaa ay ka wadaan tuulooyin hoostaga deegaanka Jabadgudani waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in goobahaasi ay ku xirayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hub iyo saanado military waxay ka soo furteen nabadiidka iyadoona ciidanka ay sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen horjoogayaal lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha qawaarij ee al-shabaab. sidoo kale goobaha howlgalada ay ka dhaceen waxaa kamid ah deegaanka Cadaan Lixi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasi ku dhumaalaysanaya kooxda nabadiidka ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgaladii ugu ballaarnaa waxa ay ka sameeyeen deegaanka Cadaan Lixi waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in goobahaasi ay ka sifeeyaan kooxda qawaarij ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa ku guuleystay in goobo dhowr ah ay ka sifeeyaan nabadiidka al-shabaab waxayna ciidanku sidoo kale cagta mariyeen guud ahaan fariisimadii nabadiidku ay kaga dhuumaalaysan jireen gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in goobo dhowr ah ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen in ciidanku maalmahanba ay wadeen dhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo deegaanadaasi looga sifeynayo kooxda nabadiidka ee al-shabaab. markana haddaynu aadno deegaano ka tirsan jubbooyinka waxaa si xawli uga soconaya howlgalada ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. jubbooyinka wararka naga soo gaaraya qaasatan jubbada dhexe tuulooyin hoostaga degmada Jilib ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ay howlgaladii ugu cuslaa ka sameeyeen deegaanadaasi. ciidanka daraawiisha Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay wadaan dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee deegaanadaasi looga sifeynayo kooxda nabadiidka ee al-shabaab. sidoo kale duqeymo xooggan oo dhanka cirka ah ayaa duhurnimadii maanta waxa ay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay beegsadeen iyo kuwa Soomaaliya ka taageeran dhanka cirka fariisimo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay howlgaladaasi ka dhaceen waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay gaareen goobihii duqeymaha ay ka dhaceen. saraakiisha ayaa noo xaqiijiyay in ciidanku ay ka dul dhaceen kooxda nabadiidka ee al-shabaab oo doonayay inay qaataan meedadkii dhaawaca ee duqeyntu waxyeeleysay waxayna ciidanku dhamaystireen guud ahaanba kooxihii halkaasi ku sugnaa ee ku howlanaa inay daadgurayaan dhaawaca iyo meedka ka tirsan kooxda qawaarij ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa maanta howlgaladii ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe waxay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay guud ahaanba ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah waxayna dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ciidanku haatan ay ka wadaan tuulooyin hoostaga degmooyinka Bu'aale iyo Jilib halkaasoo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka al-shabaab. sidoo kale Janay Cabdalla iyo tuulooyin ku dhow ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen howlgaladii ugu cuslaa ee lagu bartilmaameedsaday kooxaha nabadiidka ee al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan cadawga argagixisada ee al-shabaab. gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgalada ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hiiraan ayaa ka mid ah goobaha sida xooggan ay maanta ciidamadu howlgalada uga sameeyeen. warka naga soo gaaraya tuulooyin hoostaga deegaanka Teedaan ayaa waxay sheegayaan in ciidanku howlgaladii ugu cuslaa halkaasi ay ka wadaan. sidoo kale ciidanka ayaa waxay howlgalo ballaaran ay ka wadaan tuulooyin deegaano hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Jalalaqsi ay ciidanku waxa ay kaabiga ku hayaan afafka hore ee magaalada iyadoona guud ahaan ay isaga baxeen kooxda nabadiidka ee al-shabaab ay ku dhuumaalisanayeen degmooyinka Jalalaqsi ay sidoo kale ciidamadu howlgalada ay ka wadaan waxayna ciidanku howlgalo ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmadaasi iyadoona ciidanku ay ku guuleysteen in deegaano hoostaga degmooyinka Jalalaqsi iyo Buloburd ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab. sidoo kale Maxaas iyo Moqokori ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgalada lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. guud ahaan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. afafka hore ee magaalada Jalalaqsi ay ciidanku howlgalo miina baaris ay ka sameeyeen waxay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka saaraan dhowr miinooyin nabadiidku ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale tuulooyin u dhaxeeya degmooyinka Buloburd iyo Jalalaqsi ay si toos ah ciidamadu howlgalada uga sameeyeen. maalmahanba guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconayay howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Jubbooyinka, Mudug iyo Galgaduud ay si xawli howlgalada uga socdaan. sidoo kale howlgalada waxay si toos uga socdaan buuraha Calmiskaad oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan kooxda ISIS iyadoona ciidanka dowlad goboleedka Puntland ay ku guuleysteen in gudaha ay u galaan hogag waaweyn oo kooxda ISIS ku lahaayeen buuraha Calmiskaad. warka aynu ka helno Calmiskaad ayaa waxay sheegayaan in buurahaasi ay haatan ka socdaan howlgaladii ugu cuslaa iyadoona duhurnimadii maanta ilaa caawa halkaasi ay ka wadaan ciidamada Puntland dhaqaaqadii ugu xoogganaa ee deegaanadaasi looga sifeynayo kooxda argagixisada ee al-shabaab.
daawadayaal wixii kusoo kordhaa howlgallada culus ee ka soconaya gobolada dalka ee lagula dagaalamayo kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab hadduu ilaahay insha allah waxaad ka daawan doontaan channelkeena galcad hadduu muuqaalka kusoo gaaro meel yar inoo gaarsii channelkana subscribe inoo dheh waa mahadsantahay